waxaa maanta bilowday fadhiyada ay yeelanayaan xubnaha guddiga aqalka sare u xilsaaray inay baaritaano ku sameeyo xilka qaadis ay wakiilada hoose ee ismaamulka Meru ku sameeyeen barasaabka dowladda deegaankaasi Kawira Mwangaza. Senatarka ismaamulka Kakamega Boni Khalwale oo guddigan hogaaminaya ayaa dadweynaha u xaqiijiyey inay howsha loo igmaday u gudan doonaan si hufan. Qoraal la soo dhigay barta rasmiga ee Twitter-ka aqalka sare ayaa waxaa ku cad in xubnaha ay ku dadaali doonaan sida dhinacyada dacwadan qaybta ka ugu qanci lahaayeen natiijada ka soo baxda baaritaanada. Waxaa Khalwale ku xogeen waa senatarka ismaamulka Machakos Agnes Mudhama. Xubnaha kale ee guddigan oo ka kooban 11 ayaa waxaa kala Jackson Mandago, Karungo Dhangwa, Esther Okenyuri, Ali Ibrahim Roba, Peris Tobiko, Eddie Okech, Joseph Kithuku Kamau, Edwin Sifuna iyo Senator Jones Mwaura. Barasaabka Meru Kawira Mwangaza ayaa ku eedeysan maamul xumo ay ka mid tahay inay ku takrifashay awoodeeda xafiiseed oo ay sameysay magacaabid aan habbooneyn halkii ay howlwadeena shaqada ka ceyrisay iyadoo aanan raacin nidaamka degsan. Hase ahaatee waxay hoosta ka xariiqday in aynan wax dembi sameyn oo xilka qaadisteeda ay tahay mid siyaasadaysan. Guddiga uu hogaaminaya Boni Khalwale ayaa haysta muddo 10 cisho ah oo warbaahintiisa ugu gudbin kara aqalka sare.